waa maxay sahanka miisaaniyadda qoyska Soomaaliyeed ee 2022 ma la socotaa in dawladdu adeegsanaysa hay'adda istaatistikada qaranka ay hirgelinayso sahanka miisaaniyadda qoyska ee 2022 sahanka miisaaniyadda qoyska waa sahan dalka oo dhan laga qabanayo oo lagu ururinayo xog dhameystiran oo ku saabsan inta uu la egyahay kharashaadka qoyska adeegyadooda si loo cabiro heerka dhaqaalaha guud heerka saboolnimo iyo heerka sinaan la'aanta dhanka dhaqaalaha in sahanka la qabto waxaa jaangooyay qorshaha horumarka qaranka ee sagaalaad oo qayb ka ah istaraatiijiyada yareynta faqriga dalka sidaa darteed xogta sahanka waxay gacan ka geysan doontaa dhaqangelinta qorshaha sagaalaad ee qaranka isla markaana sahanku wuxuu qayb ka yahay dhamaystirka hanaanka deyn cafinta dalka sahankan waxaa lagu qiimeynayaa isticmaalka alaabta iyo adeegyada ay iibsadaan qoysaska sida cunnooyinka kirada guriga qarashka ku baxa biyaha iyo korontada qarashka ku baxa baabuurta qarashka ku baxa madadaalada qalabka kombiyuutarka lacagta ku baxda waxbarashada adeegyada caafimaadka iyo alaabta gaarka runtii waxaa loogu talagalay sahankan 7,140 qoys oo loo dooranayo qaab cilmiyeysan lagana xushay 595 goobo sahan ayaa loogu talagalay oo ah dhammaan dalka dhan sahankani ma ahan mid la xiriira gargaar bini'aadanimo mana ahan mashruuc gargaar qaybina xogta laga heli doono sahankan waxay wax ka tari doontaa qorshaynta qaranka waxaana loo adeegsan doonaa dejinta qorshayaasha mashaariicda dawladda ee ay tahay in mudnaanta koowaad la siiyo waxay sidoo kale xogtani gacan ka geysan doontaa dhammaystirka hannaanka deyn cafinta taasoo Soomaaliya u sahli doonto inay hesho maalgashi toos ah oo uga yimaada dibadda qoysaska ka qayb qaadanaya sahankan waxaa loo damaanad qaadayaa in la xafidayo macluumaadkooda oo aan aqoonsigooda meelna lagu shaacin doonin waxa wax laga weydiin doonaa dakhliga qarashaadkooda iyo su'aalo la xiriira macluumaadka qaybaha dadweynaha ama demografiga iyo helitaanka adeegyada su'aaluhu waxaa looga qiyaasi qaadan doonaa dakhliga iyo awoodda wax iibsiga ee dadka macluumaadka dadweynaha ama demografiga iyo helitaanka adeegyada asaasiga ah xafiiska hay'adda istaatistikada qaranka wuxuu ugu baaqayaa dadweynaha hay'adaha dawladda warbaahinta bulshada rayidka ururada haweenka iyo dhalinyarada inay taageeraan sahankan ahmiyadda weyn u leh dalka waxaa horta ugu muhiimsan in dadweynaha iyo qoysaska ayna siiyaan waqtigooda waxaan ku dhiirigelinaynaa qoysaska uu sahanka ku soo beegmay ama loo doortay inay ka qayb qaataan sahanka in waqtigooda ugu deeqaan maadaama ay qayb muhiim ah ka yahay dejinta qorshaha horumarka dalka wixii faahfaahin dheeraad ah faallooyin cabasho ama bogaadinaha ee ku saabsan sahankan naga soo wac taleefon lambarka lacag la'aanta ah ee 2137 waxaa kale oo aad naga heli kartaan iimailka ciwaankiisu yahay complaints.sisebcb@nbs.gov.so